galab wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeennii galabnimo inaad ka daawataan janalkeena YouTube-ka Sirta Wararka waa galabnimo Talaada 14 Maarch 2023 wararkeena galabnimo qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona madaafiic xoog leh ee dagaal goosgoos oo galabta ka qarxay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaafiicda ay duqeynta magaalada Laascaanood ku soconaysa rasaas goosgoos oo duleedka magaalada laga soo sheegayo xogii ugu dambeeyay xaaladda Laascaanood galabta ku soo koobi doona dhinaca kale ciidamo badan oo gurmad oo hor leh ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood kuwaas oo ka yimid deegaanada Puntland xil la sheegay in Puntland dagaalka ka qayb qaadanaysa habbeeleed faahfaahin iyo xog ku saabsan tirada ciidamada Laascaanood gaaray ee dagaalka ku biiray duqeynta bilaabatay iyo rasaasta goosgooska ee galbeedka magaalada ka soconaysa xogii ugu dambeeyay arintan ayaan kula wadaagi doonaa Somaliland qudheeda goordhow galabta waxay shaacisay sabab la yaab leh oo hakad u galay dagaalkii Laascaanood iyo madaxweyne Muuse Biixi oo afka furtay sheegana in dagaalkaasi Somaliland Puntland ay ku soo qaaday si farsameysan oo beeleysan Puntland dagaalka kaga qayb qaadanayso madaxweyne Muuse Biixi waa uu hadlay oo ku soo gudbin doonaa Al-Shabaab ayaa iska fogeysay inuu ayagu kamid ahaa dhakhtarkii dilaaga ahaa ee dawladda Soomaaliya xalay ay soo bandhigtay ninkan oo macluumaad la yaab leh xalay baahiyay markii dawladda Soomaaliya waraysi ka qaaday kooxda Al-Shabaab way iska fogeysay ninkan goordhow waray soo saartay kooxdu oo ay ku diidayso kamid ahaanshaha ninkan kooxdu ayaan ku soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weeraradii ismidaaminta ah maanta ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Sagaray iyo waliba xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolkaas oo xaaladiisa durba walul xoog laga muujinayo iyo safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Asmara oo macluumaad ka soo kordhay kaga hayo qodobadani kuba kale aan ku faahfaahin doonaa wararkeena galabnimo qayb ka noqon daawadayaasheena sida maalinlaha ah noogu xiran janaalladeena YouTube-ka soo dhawaada galab wanaagsan wixii aragtay qaybta hoose ee comment-ga ayaa nagula wadaagi kartaan duqeyn xoog leh ayaa labadii duhurnimo maanta mar kale ka bilaabatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen in ka badan ilaa 8 madaafiic ama 8 gantaal oo laga soo riday xerada Gooja Cadde ee joogan ciidanka Somaliland sidoo kale rasaas goosgoos ayaa ka bilaabatay dhanka galbeedka xaggeeda xiga halkaas isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland ee kuwa deegaanka ACC wax qasaara ilaa hadda lama soo warin marka laga reebo rasaasta goosgooska iyo madaafiicda dhacaysa inkastoo hadda oo 10 ama 4 galabnimo ay saacadu ku sii dhowdahay wararkii ugu dambeeyay Kenya Laascaanood ay xaqiijinayaan in xaaladda xogaa ay yara qabowday marka laga eego madaafiicda xooganeed ee duhurnimadii maanta dhacaysay ciidamada Somaliland ayaa wali ku sugan duleedka magaalada si gaar ahaan xerada military Gooja Cadde halka ciidanka deegaanka ACC oo ay soo abaabuleen la sheegay in wali duleedka ay joogaan dhinaca kale ciidamo badan oo gurmada wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay shalay ilaa maanta inay ku soo qulqulayeen magaalada Laascaanood ciidankaas habbeeleed u abaabuleen macluumaadka ay heynayaan xaqiijinaya in ka badan ilaa 600 oo kamid ah askar hubeysan oo watay in ka badan 32 kamid ah gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Laascaanood ciidamadaas waxa la sheegay in kuwa habbeeleed loo soo abaabulay kana soo jeeda deegaanada Puntland kuwaas oo markan dagaalka ku soo biiray Somaliland waxay qirtay in Puntland dagaalka ka qayb qaadanayso habbeeleed ahaan iyadoo ciidamada budi ka dagaalamaya gobolka Sool inay ciidamo ka soo jeeda deegaanada Puntland oo habbeeleed ahaan dagaalka markan ka qayb qaadanayaan Somaliland ayaa goordhow hore xaqiijisay in marna ciidanka inay ka qaadi doonaan gobolka Sool madaxweyne Muuse Biixi xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa isku raacay in ciidanka Somaliland aan laga qaadin magaalada Laascaanood oo duleedkeedu ay ku sugnaadaan ilaa inta xal uu ka imaanayo dhinaca kale Somaliland ayaa goordhow shaacisay sabab la yaab leh oo hakad ka geliyay dagaalka Laascaanood iyadoo sidoo kale eedan culus u jeedisay maamulka Puntland ee in dagaalka ka qayb qaataan habbeeleed xukuumadda Somaliland ayaa war ka soo saartay xaaladda Laascaanood ee gobolka Sool maalmihii la soo dhaafay xaalad adag wajahaysay iyo maanta duqeymo ay dhaceen Somaliland waxay shaaca ka qaadeen sababta hakisay dagaalka u dhaxeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka ACC ay tahay awood darro soo fosaartay kooxda ka soo horjeeda Somaliland ay dib isku soo abaabulayaan sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Somaliland ay sii deysay wasiirka warfaafinta Somaliland warkuu soo saar wuxuu ku xaqiijin dagaalka sababta hakad ku galay tahay tabardari awood la'aan hub la'aan soo wajahday ciidamada deegaanka ACC waana sababtaas ayuu yiri
jawiga laascaanood hadda wuxuu u muuqdaa mid nabadgelyo ah wax dagaal kama aysan dhicin marka laga reebo xabado ka kooban oo mararka qaar ay soo rideen kooxaha nabadda diidan kuwaas oo ciidanka qaranka ay ku baxeen jawaabta ugu habbooneedna waa la siiyay ayaa lagu yiri warka xukuumadda Soomaaliland ka soo baxay sidoo kale waxa lagu yiri kooxda nabadda diidan waxa ay toddobaadkii la soo dhaafay ay rabeen inay gubaan meelo badan oo magaalada ah oo taariikhi ah dadku ay leeyihiin waxa kale oo ay rabeen in dagaal xoog leh ay sameeyaan inkastoo markii dambe ay tabartooda u dheerisay awooddoodana la wiiqay oo iska caabin xoog leh ciidanka militariga ay sameeyeen sidaa darteedna aysan u suurtagelin wax walba ay ku fikirayeen Soomaaliland ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliland iyo saraakiisheedaba ay hogaaminayaan ay markasta xiirinayaan nabadda wada noolaanshaha iyo halka ay qaateen in xabad dambe aysan ka dhicin laascaanood ayna taa waxa ugu dambeeya ay xiirinayaan misana haddii aysan intaas xiirin lahayn awood military isticmaali lahayn mar hore ay sheegeen Soomaaliland ay qabsan lahayd laascaanood saraakiisha sarsare ciidamada waxa ma haystaan amar adag oo ah in weerar dhul ciir ay qaadaan ciidamadeenu amar ayaan siinay in fejignaan ay galaan oo ay difaacaan xeelad kastaba ha timaadee laakiin ma jirto amar dagaal oo aan bixinay haddii amar dagaal aan bixin inta lama soo gaarin dagaalka ayuu wasiirka warfaafinta xaaladda laascaanood oo maalmiin la soo dhaafay ahayd mid aad u degan waxa hadda istaagay dagaalkii socday magaaladaasi waxa kala socda dadaalo xoog leh oo la raadinayo in xiisada laascaanood lagu qaboojiyo magaaladaasi qaramada midoobay ayaa guddi xaqiiq raadin u xil saartay wixii magaaladaasi ka dhacay xubno ka socda qaramada midoobay ayaa gaaray Garowe halkaas oo kula kulmeen waxgaradka ACC iyagoo la wadaagay dhibaatada laascaanood sidoo kale guddiga qaramada midoobay ayaa la kulmi doona madaxweynaha Soomaaliland Muuse si xal loogu gaaro magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool si kastaba dagaalka laascaanood ayaa qaatay muddo bil iyo ka badanba waxaana khasaaraha ugu badan soo gaaray dadka rayidka ay ku nool magaaladaas aan waxba galabsan wararkii ugu dambeeyay weerarkii isminaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Sagaar hadii aan ku soo koobana warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarxii isminaaminta ah saakii hore lagu weeraray guriga martida ee ku yaala magaalada Baardheere caasimadda gobolka waa magaalada Baardheere ee xarunta gobolkaas guriga martida weerarkan waxa lagu qaaday xilli ku sugnaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gado saraakiil ciidan iyo xubno kale oo waxa ku jira gudoomiyaha gobolka taliyihii ciidanka siyaasiyiin ku jiro Masar Cabdullaahi waa wasiirkii hore amniga ee Jubbaland war ayaa sheegaya in loo adeegsaday gaari nooca xabadaha kirin oo laga soo bixiyo walxaha qarxa kaas oo lagu dhuftay albaabka hore ee guriga martida oo xarunta gobolka war ayaa sheegaya in weerarkan isminaaminta ah ugu yaraan ay ku dhinteen laba ruux ay ku guriyotay ayna ku dhaawacmeen saddex kale oo ku jiro gudoomiyaha gobolka Sagaar Axmed Buule Garaad iyo abaandulaha qaybta 43aad Cornel Axmed Cabdullaahi Labaale saan xogta ku helay sidoo kale burbur xoogan waxa uu soo gaaray qayb ka mid ah guriga martida isbitaalka magaalada Baardheere oo halkaas ka agdhawaab wararku waxay intaas ku direen tiro hubiyaal ay ku soo dhacay isla Baardheere waxaana guriga ku yaala halkaas laba caruur ay ku dhinteen oo hubiyuu ku dhacay xilliga qaraxa isminaaminta oo dhacay waxa la soo sheegay in xarunta uu ka soconay shir muhiim ah oo mas'uuliyiinta gobolkaas waxaana shirka ahaa mid ay kaga hadlayeen arrimaha gobolka waxyeello ayaa soo gaartay mas'uuliyiinta badi ee shirkaasi ka qayb galayay ciidamo fara badan oo goobtaasi tagay ayaa la sheegay in gabi ahaan bay xireen xarunta iyo wadooyinka soo gala si loo ogaado xaaladda qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihin la soo dhaafay ay ku sii qulqulayeen siyaasiyiin hor leh oo qaarkood la sheegay in markii hore ay ahaayeen kuwa xil ka rabay inay ka qabtaan Baardheere gobolka Sagaar ayaa dhawaan lagu wadaa inay ka bilaabo howlgal dagaal oo kooxda Al-Shabaab kana maadaama ciidamada Itoobiyaana halkaas soo gaaray dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa iska fogeysay dhakhtarkii dilaaga ahaa ay dawladda Soomaaliya xalay xogtiisa soo bandhigtay ninkan ayaa xalay laga sii daayay barnaamij dawladda ugu magac dartay Gungaar oo ahaa nin halis ku ah kooxda oo halis ku ah dalka oo dhan dilal badan geysay Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay ka hadashay nin halis ahaa ay soo bandhigtay dawladda kaas oo bulshada dhexdiisa ka dhex sameyn jiray arrimo badan oo khatar ku ah marka la eego soo sheegtay dhakhtarnimo been abuura oo halis badan gelin nolosha boqolaal dad reer caasimadda ku nool ninkan wuxuu ka soo muuqday barnaamijka Gungaar wuxuuna isticmaali jiray xeelado aad u sareysa waxaana lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur Jiino oo Dr. Farax wuxuuna ahaa dilaa qarsoon wuxuuna ka baxay barnaamijka oo uu ku soo bandhigay
dhagaro kala duwan uu sameeyay howlgal kooxda al-shabaab oo u soo qabtay kooxda al-shabaab ayaa iska fogeysay ninkan iyadoo sheegtay inuusan ka tirsaneyn sida muuqatana uu ahaa nin kooxda weligiisa uusan ka tirsaneyn waxay sheegtay inuu ahaa askari ee dowladda Soomaaliya u horgeli jiray laakiin kooxdiinu marna kama tirsaneyn ay tiri kooxda al-shabaab sarkaal sare oo kamid ah kooxda al-shabaab oo la hadlay warbaahinta ayaa been abuur ku tilmaamay xogta iyo shakhsiyadda ugu badan ee barnaamijka gugaar ku bixiyay ninkan inkastoo ninkan ahaa dilaa xoog leh oo qirtay inuu kooxda al-shabaab qayb ka ahaa dilal badan qaraxyo badan geystay maxkamadda ciidankan ay xukun dil ku xukuntay haddana sidaas ay tahay kooxda al-shabaab way iska diiday ninkan ayagu inuu ka mid ahaa Dr. Farax waxaa laga soo qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan intuu socday doorashadii muranka badan dhalisay barnaamijka laga sii daayay warbaahinta dowladda ayaa dhammaantiisa ahaa mid uu ku hadlayay xeeladaha isticmaali jireen kooxda al-shabaab oo ninkan uu soo bandhigay ninkan ayaa ahaa dhakhtar been abuur ah oo ka howlgeli jiray isbitaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu ahaa sarkaal ciidan oo dowladda ah wuxuu watay darajooyin ciidan oo been abuur ah edhikaaro aqoonsi been abuur ayuu sameystay hanaanka dadka loo dilo meelaha laga toogto sida qofka loo dilo ayuu rasigiisa sidoo kale ku qirtay dilalkii qaraxyadii uu gacantiisa ka geystay ninkan ayaa sheegtay inuu isticmaali jiray maalmihii dambe magacyo been abuur ah sidoo kale wuxuu sheegay inuu isticmaali jiray odayaasha dhaqanka beeshiisa saraakiisha beeshiisa iyo mooriyaantiisa hadii la xiro si ay u difaacaan laakiin dhacdo la yaab kale ayaa ah in kooxda al-shabaab ay iska diiday ninkan inay ay sheegtaan inuu ahaa nin ayaga ka mid ah kooxdu waa iska fogeysay waxayna sheegtay ninkan uusan weligiisaba al-shabaab ahayn uusan qaybna ka noqon inuu u dagaalamin sida kooxdu ay sheegtay warkii galabay halkan